shilaabo sarkaal ka tirsan militariga Ethiopia ayaa laga kari waayay gabar dhalinyaro oo meherad ku haysata halkaasi inuu dili doono ayuu ugu hanjabay isagoo dhowr jeer ku soo weeraray meheradii ay ku haysatay magaalada maamulka degmadaasi oo ugu horeeyo gudoomiyaha iyo saraakiisha amni hortooda ayaa lagu bahdilay isla markaana lagu dili rabay gabadhaasi Soomaaliyeed iyagoon ilaa iyo hadda waxba aan ka qaban arinta cabsidiina ay sidii wali u taagan tahay sarkaalkani ayaa ku doodaya sida ay gabadhu wareysiga noogu sheegtay inay aflagaadisay haddaba Anfac Maxamed oo ah gabadhii la kulantay handadaadaas walina ka cabsanaysa inuu maalin maalmaha kamid ah soo weerari doono askarigaasi oo nafta dhaafin doono ayaa u warantay Juba Times marwa Anfac Maxamed ku soo dhawow Juba Times bal waxaad nooga warantaa sida ay wax u dhaceen waxay u dhaceen walaal darrad arbacadii meel meeradan suuqa shilaabo buunta ku leeyahay waxay ugu imaaday walaal askarigan iyo askari kale soo galba askari ahaayeen meeradu laba albaab ay xiranta oo ku saabsamayo laba albaab inay xiran yihiin oo axmar raabta uu soo galay Etoobiyaanka askariga markuu yimaado wuxuu yiri walaal inta ma taalay waxba wareysi la galay wax ma yeelaan ma ku yiri kaalaadu halka soo farsiyo uu yiri waxa jiraan ku magacaab uu yiri magacayga maxaa kaaga xiran ma ku yiri waa gartay magacayga maxaa kaaga xiran ma ku yiri wuxuu yiraahday kaalaadu magacayga sheego magacayga waxa kaaga xidhan inta ma taalo subaxa oo ma ku yiri ma kaan yiri bawinaamana isku wadankeena anagu kuna ma ogniyaa uu yiri hay markaas oo dhan inkastoo dadka macaamilada dhaxmarta anaayna haddana wax fudud ma arkay in kuna soo ninka go'aantooda dagaal kaliya howlo kale ku jiraba aan ku walaal maxaa jiraan ku yiri ana magacayga kaaga xidhan usubaan ku usugaas marka ka xanaaqo usuga baxa uma nidi ala kulli xaal markii dambe handadaad iyo dib iyo waxba sameeyay kullu wax jabsay u soo tuuro kullu wax waxeeyo anaga hormaanay wadankan xukunaa maxay horormada anaga dad booma aqaano waan ku yiri inta ma ku yiri wuxuu kolba jabsado soo tuuro kii kala ka qabto meel cidlo fogna waan joogo meeradu ay xinado meel damban si joogay ugu dambeyn wiil yar oo baa isoo galay dhalinyaradii la shaqeynaysa kamid ah wiilkii baa luqada aad ugu hadlo maxaa dhacay naagtan aniga isku igu tiri say u soo yidhi kartaa biina wadanka anagu kuna moogamiya raala oo fiil raali galiyo isku day uu diiday wiilkii uu turunturay dibkii dagaalkii uu sii badiyay marka arkay ninkan waxba qaban karin nimankan askari yihiin oo man dad kale u qaylada kala soo bixeen dadkii baa naga bixiyay waana laga saaray wax yar kadib markay sheekadii wixii dhamaatay dadkii kala xaroodeen مخربوطك تاي salaada مخربوية عاي أنا ميرد سيد أفرديا والباب كن عيش عليهم برقصي هو جرا والباب كارات ساس وقلت وعسقي يلا متكرا مركا ويني مركا لبا يهاين نتحاد بالله سؤال مركا ساس والباب وصفر كوة مركا قبنايا أدانا مجالي بصوي علي كوة لقى ساري كدب نقوليه محل داعي يردي مش توتي وش بوضع الغريب نك لك شيء مركو نك يقتلي waxaan arkay wada wax maxaa dhaayay meesha maamulku joogay wax ka iska bedeli doonaan dhalinyaradii wixii wala bulbulin nimanka wala la hadli baaliyay baan nidi ayadoo wax wali barbixin la ii keenin ana tii sharaysanin waa dana shal casri u soo noqdayba casarkii aniga waxa meerad joogo oo hooyi aaba ila joogan oo soo galay saas uu soo galay marka biskoolad gacanta ku wataa maalin kor wax aan amano wadin laakiin handadaal badan ay dhagaxayn badan ay wax u sameeyay oo deeno dilayeen waxtaan ninkii dilay uu isku dayay haddana maalinka hadda biskoolad gacanta ku watay ninka marka waxa sameeynaya xidii wax yar leeyahay kuwan kalena waa dad askar caadi ah markuu soo galay ninkii waxa aaba saa inaa ugu sanay laabo waa ninkii istaagay inuu ka sii baxay baa daray ama xagga damaanu carray aaba oo istaagay saas aaba oo waayeel saas uu kala tuuray uu soo jirayba jirtaanku jiraan meel laaban galay muun arkeenin iyo qayladii oo aaba isku daray magaalada dhan baa soo tiray waa la isku yimaado maxaa rabtaa baa yiri dhowr hadal buu kala hadlay markuu yiri gabadhu way cayday oo waxay ugu tiro uf iyo wax saasa marna wuxuu yiri naagtan jecelahay maadaama jecelaana day raacoodu waan dilayaa marka waan jecelahay waan dilayaa dadkan buskaga waan jecelahay dadkan buu kabinaya laakiin ujeedkiisa uf bay ugu tiri uf ahaan baan u dilayaa ku duulaya ugu dambeyn anu dadkii meesha soo yaacay wixii qabashadii la kaxee ninka markii dambe laga wad dhaxda markuu sii mariyo ninka hadana soo balqaraama yaaba kareebaba xaqan buu soo odayay dadka shacabka iyo askarti la socotay wuxuu baa qaban wala kari waayo qalbu soo baxsan markii dambe oo isaa halka marayso oo baa qola dhalinyarada ay wacda qola saldhiga joogtay nin baa la igu dhiibay ninka marka aanu ma garanaynin laakiin taleefanka la igu dhiibay yuu walaal ii waran say wax u dhaceen walaal waxaan ku yiraahdaa say wax u dhaceen waa si lagu sheegay waxaan kaaga warbixiyo kala nama garanayo
markii uu qof meel ilaa fadhiya ama dib haysan dib shala ku dhacay uu ka sheekaynayo uu warbixin karaa baan dibka oo taagan ninka hubna la hortaagan oo anagu hub mindin Allah ka dhigay waxba aan u haysanin deenaday dhansay wuxuu dhacay waa laga qurbaday bal goobtii ma kaala ka warbixin maya uu si kale jikaaran uu la hadla ma jeclaysanin waa iska jiray teleefkiis kada warbixin ma heeran qolan dib u raadin nin baan la hadlay ninka uu si fiican buu ila hadlay abtii oo shuwan maqlay waan galnay waan raadinay qola kanaan ii soo sheegtay ciidanka qusaysan la hadlay warbixin ana ku soo siiyay gudoomiyaha meesha ay qisadu ka dhaceyso agtiina ayuu dabcan fadhiyay marka muusan imaanin oo muusan arintii sii guda galin maadaama uu gudoomiyihii dhamaaya degmada uu yahay maayo waxba kamuna geysanin wuxuu ka gudagalay ma arkin meherada ugu dhagan buu fadhiyay anu shaahidun anaan ka qaadayay ma sheegay taas markaan u yeeray dadka taas u fadhiyay anu laakiin asama magacaabin dhalinyaro kale oo fadhiyo wareebel nin baa idilay ku iri dhalinyarada baa soo yaacday ayagoo markaa la yaacay axmaarka la kaxaynaya uu arkayay wax yar kadib ninkii markii la waday deeqaabkani waxan ay dhaceen lamaana hore ahayde oo dib loo soo noqday sheekada laga sheekeynay wiilkii kaaya aniga ii imaanayay ila joogay la hadlay ku maxaa dhacay aniga reemo dhigtaan wiilku ay taas dhacday kadib wax jawaab kama soo bixin ومثلا ساعة وسكام سبني كذا سمي قالوا ودي قاري يتوقع كوير حبت بقفن معي وانكو عن حال داي حيد كذا قبضان يوحي وربحين قالوا وسيه محتوابك كمان السن إن وسكام سوي كرسي يوم بوقا بحي على كل حال مركز ضمبه إن حدا ور إن قضية صلدقة هاي وركو قد بيه وحتوابي من السن wiilka kale aan waan la hadlay waxay waan soo gudagalay yani iyo sug iyo islaal iyo waxa mooyaan deena wax ku soo qaban amaanada xuquuqdaada maadaama masuulkaaga ay raadin imuna dhihin qodiga kale ama deeasi kala isku naqaan ama masuuliyiinta degmada ha noqdaan aan u sheegana wax warbixin iga soo siiyay ma jirto soo walba ha noqotay aan wada bilaa dadkaas waxbay ku tariismay laakiin waxa bixir dhici kara ama awalba dhici jiray un bay waxaan daba joogaan hada shalay aanu ma tagin meesha laakiin waxa la sheegay xalay in amaaraha safar xaafada kamid ah dad degan dhalinyaro ay weerareen gabadh yar dhaleen hooyadooda u joogtaa noo soo bixiyay lahaayeen halka mar waxa bashiga uu hadlana Soomaaliya ka birsan tahay qabri daar ba xabad ka dhaleen xabad ku ridmaayeen 13 jeer ka badan ku celiyeentaa oo mar walba aha marka aan waxaan diidanahay inay si fudud u arkaan oo wixii dala dhayarsado waxa isbedel laga keenin xitaa si maxay idin gaaray deher wada qoys wada degan baan aabaa iyo saddex ruux baa isku gar fadhinay si wax idin gaarin dadka anaga masuulkana midna inuu sanad dhihin ama si family ahaan ha noo dhahan ama sidoo kale ha noo dhahan midna aan laga helin walaa way dib badan tahay haddana aniga ahaan hadii saxdaani wax idiyeelin dadka bari wiiga dhaxaysa hadii wax bedel ahmaaraha sana barbagandaynaya meel falba ka geysana kana damarku baxay ruux walba oo arko waxaas uu sameeyo leeyahay hala hada gabadha guriga ku xidhaan ma arag laakiin waa la sheegay xagan dad ay wax ka garteen wixii lacagta u diidan isku dhaceen waa la sheegay haddan garabtaana ku aan hadalka aan ku hadlay wax yar ka hor asagii afar uu taasaa u maray saas uu inay soo hadal baabka ay xiran hadii waxaan aaminsan uu markuu soo cabeeyay uu soo garaam lahaa way ahna marka horna ana maxaa dhahay kulana iga argay kala ka arag haddana aaminsan baa inuu wadanka kuma hadalku dhahana ana wadanka kuma أنا محب أنا هاي أورم أنا هاي كل تجعل ما يودك كم ماله عد كلا أول سنة أنشرين والله وعلوس هاي مركب ميو عبسني هلا ميو عبسني هاي مسوا عادي مركب سوا عرب ونقص الضلوع عياميها والله أنا ورد درد محل نقصو شكيني وح عبسني لما هو كان لكن أيها ضد المركب اللي وديو أما قلنا الملتري قال له قفل بوع واحد له يقص حالنا عبسنا dadki kamid ahay dadki taxayay meesha geelaha leh waxa ku dhan axmaarku cabsi ana ka tilaabo qaadayna laakiin aan axmaarku soo halay ee u faantamay ee wadanka ku naam maxay u lahaa qof cabsan ama qof dorogosan dhacay ila munaykeen labada jeer ba ila munaykeen wuu maalinka dambe ana u istaagin oo biskoolada gacanta ku qof biskoolada gacan ku watana ku dhiigaad u istaagin soo ku dhigi qalaadaba